waxay noqonaysaa un aniga soo dhaweyn iyo furitaan bay noo noqonaysaa aad baan uga mahad celinayaa inaad soo ajiibtaan martiqaadkan sida quruxda badan looga soo wada qayb galay insha allahu tacaala waxaynu si hordhacna halkan uga dabaaldegi doonaa guusha xisbiga iyo guusha madaxweynaha hadallada inta badan mas-uuliyiintaan u dhaafi doonaa waxaan leeyahay soo dhowaada madashana waxay isu baran doonaan insha allahu jiilka cusub ee xisbiga ku soo kordhay iyo mas-uuliyiintii iyo hoggaankii xisbiga wuxuun baan intaa raacinayaa inaan hambaliyeeyo labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee soo baaskareeyey ama soo gudbiyey xeerkii muranka badan dhaliyey muddada badan aynu sugaynay ee dadka reer somaliland guud ahaan u dheg taagayeen ee doorashooyinka insha allahu tacaala odayga miiskiisa ay saaran tahayna waxaanu rajaynaynaa inaanu ka warwareegin inaanu waqti naga luminin inaanu muran dambe ina gelinin inuu ilaahay xaqa waafajiyo oo ilaahay tuso inuu saxeexo oo uu dhaqan geliyo inana doorasho isu diyaarin doonaa insha allahu tacaala waxay noo hadhay boolice stationada iyo codadka in loo dareero wixii ka dambeeyana hawsha u diyaar garowno guul baan xisbiga u rajaynayaa guul baan musharax madaxweynaha u rajaynayaa guul baan dhammaan ka soo qaybgalayaasha u rajaynayaa hadafkeennu waa midnimo waa wadani waa walaalaynta somaliland waa ka shaqaynta wadajirka somaliland waa hirgelinta hibilooyinka iyo horumarka somaliland iyo dalkan oo guul iyo barooqa aynu u horseedno iyo musharaxa iyo xisbiga oo aynu isku barbar taagno oo aynu ku hubsanno insha allahu inuu talada dalka kursiga ugu sarreeya aynu saarno mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakaatu marka waxaan baan halkan uga mahadnaqayaa xildhibaanka xafladda inoo qabtay xildhibaan axmed weli marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga musharax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro iyo guddoomiyaha xisbiga guddoomiye ku-xigeenada xogeeyayaasha iyo dhammaanba bulshada xisbiga qodob keliyana waan yar waadixinayaayo innagu intaynan caawa isu timid sidaynu u muuqanno waxaynu nahay dadkii xisbiga kaadarkiisii ugu sarreeyey baynu nahay mar haddaynu kaadarkii ugu sarreeyey nahayna waxaa laynaga doonayaa sidii aynu xisbiga u meel marin lahayn oo keliya ka soo qaybgalayaasha runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ninka noqonaya ilaahay idinkiisa dhowaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cigaal ciro guddoomiyaha xisbiga xirsi dictionary-ga somaliland aanu filayna ilaahay idinkiisa inuu guurtidana isagu noqon doono cabdiqaadir jirde wasiiradii hore arrimaha gudaha ismaaciil aadan cismaan ka fadhiyo madaxda ugu sarreysa ee xisbiga ay ku jiraan xogeeyayaashu xogeeya ku-xigeenadu madaxda gobolka gabiley marwooyinka qaaliga ah ugaaska guud ee gobolka gabiley goor dhaweyd oon halkaa idiga kacay agtiina waxaan u kacay dumarkaas qaaliga ah ee halkaa fadhiya marka aniga boholyow bay hayay dumarka la'aantii oo kolley dee reer ahaan xisbiga waanu joognay laakiin dee cidda runtii aan odhan karo way jaangoysaa hadda xilligan aynu joogno codka cidda jaangoysaa waa dumar markaa boholyow aan u qabay dumarkaa inaan barto oon dhex galo ayaan salaan ugu tegey waxaan si gaara xafladdan runtii aan maamuuskeeda iyo milgaheedaba u siinayaa xildhibaan axmed weli aad iyo aad baan ugu baarigayaa anigoon hadalka ku dheeraanaynin waxaan leeyahay allahu rabbi bilcumareyn buu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu hiilka u baahday marka waxaan leenahay axmed weli waa labadii cumar mid ahaan oo runtii xisbiga taageeray inagoo lahayn ninkan maanta meesha ku fadhiya musabbixiis inagoo deegaankiisa ka soo jeedna ayaa wuxuu ina siiyey guddoomiyihii kaambeenka heer qaran wuxuu ina siiyey guddoomiyihii kaambeenka gobolka maroodijeex oo halkii lagu kala baxayay agaa guddoomiyihii kaambeenka heer qaran kii gobolka maroodijeex waxa kaleynu lahayn guddoomiyaha gobolka ee xisbiga yaa intaa ku dhaca iyadoo lala tartamayo nin qabyaaladeed maaha ninka maanta aynu wadnaa waa nin qaran waa nin wanaagsan ciil iyo cadhatoona qalinkiisana kama muuqato maamulkiisana kama muuqdo waa nin mudan oo qarankoo dhan ka mudan in la doorto maanta laba qolo ayaa somaliland inay sharafteeda iyo karaamadeeda iyo isku haynteeda iyo wadajirkeeda inay fartooda ay ku xaqiijiyaan looga baahan yahay qolo dadka mataliyaan ku jiraayo waa habal awal qolo kalena xirsi cali xaaji xasan oo meesha fadhiya
oo gudoomiyaha ruuxiga ah runtii siyaasadda lagu hogaaminaya ayaa matalo labadii qolo jeegaanta la baxay shalay wadanka halkaynu kala dhacnay waynu ogeyn maanta inagu guusha aynu uga horseedno maanta waxaan leeyahay guusha inagu aynu kow ka ahaano mudana gudoomiye adiga iyo beeshaada intay maqlaysa iyo intay fariintu gaadhaysaba qaranka haadaan baynu ka ridnaye qolo aan isku deegaanaan habeen dhow shirayno waxay yiraahdeen halkaaga la isugu yimaanaya way yara baqayeen odayaal bay ahaayeen markaasaa ku intaynaan iman intii berigii 17kii u codaysay kulmiye farti yareedaynu ku codaynay 7 jeer oo biyaayo 7 jeer ciid aynu isaga meeyno horta marka waxaynu maanta aan idin ka codsanayaa guud ahaan inta meesha joogta iyo inta maqanay maqlaysaba qaranka Soomaaliland badbaado u baahan yahay danta guud halka aynu socono arkaynaa maanta dantu Cabdiraxmaan bay ku jirtaa waqtiga ay ugu kooban mooyee 13 qodob oo waxaan ka diyaariyay shakhsiyadiisa hogaamintiisa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi intii aan ag joogay aan ka bartay oo kuwa nagu waajibinaysa inaynu maanta u dooranno madaxweynaha qaranka waqti ku habboon maanta dadka u sheegi doonaa laakiin qof kasta oo la dhaqmay la fadhiistay meel la maray in arkay Cabdiraxmaan wuxuu qiriyay inuu yahay qofka ku habboon maanta in la doorto Soomaalidu waxa jira waxaagu ama xeeraha kuugu jiro ama xeerha kuugu jiro maanta reerkeena xeera wax inoogu aynu wax ku xareeyno ma lihiin oo bahal baa galay xoolaheena daayo innaga aan inda badbaadinayna ina cunaya kolka dambaa tiri inaynu xeer gashano adigu ilaa hadda ma garanayo cidda Cabdiraxmaan la tartami karta doorashada waa iga run Muuse waa naqaanaa Cabdiraxmaan cid ka reebi mayso ee waa soo qadimaya isagana waxaan isweydiinayaa war waa ay habara washa dhisaysa ee raggeena ka hor iman kartaa ee u hadha waan eegayo garan buwaay anigu cid allaaliyo cid intay soo badheedho oranaysa buusar u dhisayna anigu kuwa la joogo waan la hadlay waxaan ku yiri anigu halkaas arax haddaa tala dhaanta haysaan oo ileedihiin waad qaldan tahay waanu ku qabanaynaana dee tolkay baa tihiilo waan idin dhegaysanayaayo way qaban karaysaan cid allaaliyo ciddii tala dhaanta haysana waan ku raacaya haddaana taladaana hayn tanna soo raacayn qofkaasi muxuu dadka u sheegayaa haddii laa min haaulaa'i walaa min haaulaa'i xal maaha ummaddana waxgarad bay leedahay dhaqan bay leedahay odayaal bay leedahay ugu dambaysta gego cidlo ah ayaa ku soo haraysa Muuse Biixi haddii aanu nahay dhalinyarta ee gobolka cagaaran ee Gabiley haddii la oran jiray ama lagu taami jiray xisbiga wadani cod kama heli karo waxa aan leenahay maanta waxaad ka heli doontaa codka ugu badan iyo codadooda haddii lagu xaman jiray macnaha waa dad oodan oo xero ku jira waxaan u cadaynaynaa xisbiga wadani inaanu maanta oodi jabinay oo xagga soo yaacay sababtaanu soo yaacayna waxay tahay dalkan waxa uu u baahan yahay inuu hore u maro ee uma baahna inuu dib u laabto xisbiga talada hadda dalka hayaana runtii sidii aanu ka filaynay iyo macnaha wixii uu nagula ballamay ee dalkan horumarinteeda ahayd kamuu soo bixin shuruudihiina muu buuxin taa awgeed haddii aanu nahay anagu dhalinyarta gobolka Gabiley waxaanu u baahanahay inaan dalkayga horumarino uma baahnin inuu dib u noqdo markaas waxaanu leenahay xisbiga wadani taladii qaloocantay ee xisbigii horumaray
waxaan rajaynayaa inuuna mari doonin xisbiga wadani waxa kale oo aan leeyahay madaxweynahayaga mustaqbalka hore haddii lagu odhan jiray gabiley kama ololeyn kartid iyo agagaarkeeda iyo deegaanadeeda maanta waxaan kuu caddaynaynaa oo aan diyaar u nahay in geed ballaadh oo xadka Itoobiya aan xudunta habar awal iyo garxajis ku soo aasi doono madaxweynaha mid baa ka codsanaynaa insha Allah waan guuleysan doonaa talada dalkana waan qaban doonaa dalkeenuna horu mari doonaa waxaan ka codsanaynaa sida uu hadda qalbigiisu u furan yahay ee albaabkiisu u furan yahay inuu u furnaado dhalinyarta iyo waayeelka iyo waxgaradka ee una bari ku filan saaray mudane taasaan ka codsanaynaa waxa kale oo leeyahay dhalinyarta Soomaaliland war waynu ka soo gudubnay waqtigii qabiilka war waxaan doonaynaa inaan qaran dhisano dhalinna waayeelka iyagana waxaan leeyahay iyo qoyaaniinta siyaasiyiinta iyadii hore na waxaan leeyahay kelmadda mujaahid ana laga daayo kelmadda mujaahid waqti bay ahayd waqtigii waa laga soo gudbay waxa ay dhashay Soomaaliland wax aan yeelan waxa uu dhalay calan saddex midab leh waxa aan doonaynaa in laga daayo kelmadda la idhaahdo maxay ahayd mujaahid dhalinyarta waxaan leeyahay war aqoontiina iyo qalinkiina wax ku dagaalamo oo dalkiina lagu dagaalamo iska daaya qabiil aynu dhisano qaran dalkeenana uma baahna inuu dib u noqdo anigu waxaan ku aqliyeystay dalkayga oo qurux badan mar rabo inuu dalkaygu aniga dib u laabto inuu mustaqbalka ubadkaygu u xumaado taasna waxaa bedeli kara dhalinyarta Soomaaliland anigu haddii aan u ololeyn jiray ama u codeeyay ama u tumi jiray xisbiga kulmiye maanta waxaan u tumayaa cudud iyo maal iyo xoog bal garab taaganahay sidii aanu u soo saari lahayn xisbiga wadani walaalayaal waxba kala qarsan mayno maanta mar haddaynu soo fadhino magac baynu wada leenahay doorashadii uu musharaxu uu ka ahaa musharaxa madaxweyne ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi daliil fara badan baynu qabnaa haddaynu Muuse Subeer awal haddaynu ka sii daadacno reerka Sacad Muuse Leelaaye ka soo jeeda daliil fara badan baynu qabnaa walba wixii intaa ka dambeeyay tii hore way dhacday aad bay u dhacday oo hadday tahay rag waaweyn oo ololihii ku jiray oo ka qayb qaatay ololihii ugu weynaa ee gobolada Gabiley ama deegaanada Sacad Muuse ama deegaanada Subeero ilmaada yar dhalin fara badan baynu leenahay maanta uu musharax u yahay haddana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ilmaada yar yaaro si daacada oo gobonimo ku jirto waaraynu la shaqeyno ilaahayna aanu ka baqno si wanaagsan oo sharaf iyo karaamo ku jirta aanu shaqeyno Cabdiraxmaan waa nin siyad saafi wallaahi inaan dagaalka ku dhacay hadduu cid kale ku dhici lahaa inaanu qosolna yeesheen sharafna la yeesheen laakiin mar walba quruxdiisa iyo sharaftiisa iyo qosolkiisa iyo qalbi wanaagiisu uu ka muuqdaa ilaa imika ka muuqdaa maanta waxaa isfuulay xidigii iyo dayxi adeega mar haddee dayxi xidiga isfuulaan waa doorashadii uu kursiga ku fadhiisanayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad moodaa in badan baan xaflad xusbi ku soo taagnaa tani sacaawo gaar ayay ka tahay waxa cusub mudan xafladan ragga soo qabanqaabiyey oo gobolka Gabiley ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa aad iyo aad xusud mudan iyadoo ragga halkan fadhiya rag iyo dumar caawa ay u badan yihiin habarawal habaruusu haddana way isxabataa had iyo jeeraale gobolkan Gabiley waxaa la odhan jiray waa kacaano had iyo jeer way yar dambeeya dhinaca kale taariikhda marka dib loo raaco waxaan caawa halkan idinku bishaareynayaa mudane madaxweyne horta reer Gabiley
وأستامها اللبو يقانا قوش وحن فرديين اللهم حريستين محمد حاجي إبراهيم عقال يسوقوا بري كشيكين عين تاريخ لو كشيكين واحد دوري اللحدنكي وحد مركا عن دوخو عربون مرقان قبيلة بين خلاوات لا تجي وحلينا عاوة إفتينكي قوشة مدحويني إن يربي كوشري أنا ودكو بشاريسو يا آد وحلينا غير قبيلي وحكون مدنتي رقية دمر وتاريخ ذا كوكا شين hortaan uga habaro wax xafladii ugu horeysay ku dhac lahayd samaysay aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaya waxaan kaloo idinku bishaareynaya boqolkiiba 80 hal rag halkan fadhiya horta waa dhalinyaro waxaan isaga xusbigan wadani musharaxeedu waa mahandi horta wuxuu ku wareejay dhalinyarada haddaan idin xaadiriyo de horta xirsi baa gudoomiye waa dhalinyaro حمرت هالك أكسر شيء بل دوان ذي شيء محمد فارح وهالك أفرديا هالك إني يرفضي يونس ليرابا أفرديا قبل جاي قضاء سيدا إسماعيل يوم ما ربنا يسقنا وحنور ربنا وإسماعيل يرانتم راعي أيضا ليرانا قلت واحد بيقول بشاريني أنا مستنبذ ما أنا عبد الله قال شيرني ويسوي جاي لط كي يسوي عمرنا ليرانا الراعة قلت الرجل حوق قال لك السوقية حسبكن تعب كيسة يمريه سكرنا واد اللي يرد نالك فريستي وقاعدة حسبكن واد لو سوك الهوري لما كر الله سيدا عن ذي شيء وح مصرعه مدحويني كردالة ومهندية ويسقوا وان دور سجارين تاريخ مركي جوريسي إذا حسبك رجع عن صوتها وبرفر فرعونا إذا اللي يرد بانكوري شرية oo steering ka u hayo dhaxirsi oo garanaysan marka waxaan dileenahay reer gabiilayo aniga lafteedu bariga hore marka la dhaxmanayo number 2 gaan waxa loo jiray saaxil iyo way yar dambeeyaan iyo gabiili marka waan ka yar gilgilay jiro waxa loo jiray war waan yar dhaana reer gabiilayo xaraaradayada yar kacdo hadaan markacno waanu ka yar horeynaa laakiin waxa idin qirayna naga horeyseen aad iyo aad baan idin salaamaya ilaahay uma waxaanu weydiisanaynaa ka baryaynaa isagay gacantiisa ku jirtaaye inuu ninka dalkan haysta ee wax walba carqalada kula jira in ilaahay naga qabto ilaahay ku ijbaaro inuu degdeg u saxeexo xeerkii ay la ansixiyay iyadoo meel allaala meel uga baydhaanan jirin aynu horta ilaahay ka barnaa tahay noo barya balaayadu qofku markuu doonayo isagu bay balaayadu ku dhacdaa balaayadu cidii doonaysay ku dhacaysaa Soomaaliland inagu waxaanu jecelnahay nabad iyo barwaaqo ku noolaato haddana soo noqdo xildhibaanka halkan xafladda ka qabtay dhalinyarada ee sidii ugu qabtay gabley ka soo jeeda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya inantii sida wanaagsan halkan ugu hadashayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya runtii kolkan gabley arkay wuxuu Cabdalla saaxiibkay ugu oran jiray warniyo maxaynu ka yeelaa konton kun ee oday gabley haddana yaa konton kun oo oday naga dhaqaaqayo حقيقة كمرنا أيوة ننتري وقت جاي ده هاي خير هو حكوا ترى عبد الرحمن إن أنا تي هرهيل كنت مركز دوني سام إلى هاي دتكو وحبري ويا كمان نان لما نمبا مشاهد كير كنها لقد وين الدالي بل هنا وين سل الدالي هنا حرسنا هبيني ما نمفرستنا حيقوا بيرو كتيرنا يعني تقال بيرو كنا بيسنا هاي لكن مكان راحل إن شاء الله كنا بيسنا دونا كنا هلي دونا دينعي يرد سلع سنة واحد من مركي جيب لنا سوق الجلتي وهي هذا كستون مقعدة بيرا إن الشجاع أنا شعلي هذا يجيب لي سوق الجلتو تحقيق الواسطة يا جماعة ما أنا دستينه وأنبتاس وإذا هذا صدق ما أنت يود ديريان حسبك ولا هو رد ديريه ويكسر عن حسبك وطني وعن هو سعد موسى عيسى موسى كله بري يرجع سبت شوقه إن أنا مال إبرة هنا توصل راعية هذا يسوع دي بيدان اثنين يسوع ضبطاس دي بيرها دي جيب لنا شغله بكون ما أنا دي وفرح دي ولا لا دقايو غيري كلون ودقايو نواكي ألكن وكاس وكاد ديو ودي دقاي كي جيب ليه غرغرة دقو مدقان بدقو أكيشة دقو محمد عسى دقو وبحث مرونه دي وين بدي المركا
muxuu ahaa inaha yaryar uu sheegayo xoogayuuna kuway jirjiraan waxba ka sheegi waayey imaka laakiin meesha hoggaan bay day leedahay meel waliba hoggaankeedu waa kan marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa ciddii aafe iyo balaayo wado dhan in ilaahay naga qabto balaayadana inaga mariyo isha jinka iyo kaysiga iyo sharkiisa iyo xaasiniintiisa iyo xaaqadiisa in ilaahay naga qabto guushana ilaahay na siiyo berigii hore anagu xisbiga dal safray waxaan ku ducaysan jiray ilaahu khayr hadday tahayna isii haddii kale inaga jooji laakiin cabdiraxmaan waxaan leeyahay ilaahu adiga mubadala wax kastaaba ilaahu xataa haddaana khayr u hayn cabdiraxmaan ilaahu khayr uga dhig adiga awoodeeda leh aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa gobolkii cagaarnaa oo awal meel u badnaa codkooga had iyo jeer meel xooga kula ciiri jiray maanta hadday arkeen xisaabtameen waayo dadka qodaalku kollayta way ka degan yihiin oo qodaalku xaaladaha waxyaalo badan bay dul qaataan laakiin markay xaaladdu adag tahay ay bahashu qiriqiir gasho waa dad dalkooga iyo dadkooga iyo badbaadadu halkay ku jirto eegaya maanta xaaladda dalku halkay marayso ama muuse ka riday dee nin aan damiir lahayn mooyaane nin inuu sii garab joogo oo uu taageero dee xaaladdaasi way adag tahay maanta dalkeennii halkuu marayo gobolladii dalkii oo ka baxay faraha ciidamadeennii dhowr iyo 30 sannadood la soo dhisayay halkay marayaan hubkii la soo dhisayay halkay mareen dhaawacoogii iyo dhimashadoodii iyo kuwa la hayaaba halkay marayaan dadka bilaadanku dee damiir buu leeyahay xamil iyo meel u qaaduu leeyahay oo qofka bilaadanku awrku baa leeyahay xamilkiisa mooyaane xamil qaloocan ma qaadaan meesha xaaladdu dalku marayo u malayn maayo qof bilaadan oo damiir lehi halka uu marayo inuu ku sii taageero u malayn maayo waa dalkii baa la laayahay dadkii baa la laayahay hantidii baa la laayahay meel mariye maanta marka xaaladdu maanta meel adag bay maraysaa nafteennii bay maraysaa badbaadin xaaladda dalkeena inta hadhay inaan badbaadinno oon u soo jeesanno ayay maraysaa maanta xaalad qabiil iyo reero iyo meelo iyo ehel waxaan sii eegno ma jiro isaguba ma eegin qabiilna ma eegin oo qabiil uma roona dal uma roona gobol uma roono maanta hadduu damiir leeyahay dee kii degdeg isku casilu noqon laha bilaadanku waa gafe waa khaldamaa waana lagaa guulaysan karaa laakiin bilaadanku waa kii ka garaaba gabaygii gaariya ahaa gafkana bashar baad u tahe haddaad ka garowdo khalad gob bay caadadeeda tahay ninka weli soo indha adag ee soo jeeda xaaladda dalka u geystay uu dadkii u geystay uu hantidii u geystay uu qarankii u geystay weliba meesha soo fadhiya ee weliba meeraysanaya dee horta waa mid subxaan allah ninka soo reer somaliland oo damiir leh oo fikiraya ku yar iyo ku weyn markay ka dooniba ahaatee nin walba godkiisa ayay ugu gashay waxa weeye inaan ka saarno oo bal si fudud hadduu ilaahay ka dhigo muddadaa yar hadhay aan u tabaabulshaysano oon gacmaha iskaga qabanno oo bal intaa ugu dambaysaan ka badbaadino nin kasti oo somalilaana ama ha yaraada ama ha weynaad ama walaalkii rumaan noqdo ama ilmihiisa ha noqotee dantiisa ayaa ku jirta taasi waa inaga ballan waa inaan u guntannaa maanta kolba meeluu ku go'domaa bannaankuu baxay bannaankuu taagan yahay hadduu ilaahay ka dhigo inaguna guushii hormuud baad u noqon doontaan hadduu ilaahay ka dhigo waa dadkaa deggan ee dareemay xaaladdu meesha ay marayso ee duruufta iyo danta soo bixisay hadday shalay lahaayeen muuse u rajiid dee maanta way arkeen dhibtii malaha erigaa naftiisa ahaaye maanta xaaladday arkeen wilcom baan leenahay waan soo dhawaynaynaa gabiile ummadda ka mid baan ahay cod banaansanna waan ka soo helay reer caalin cigana waan ka tirsanahay marka halkaa wadaaggaa waan idinla wadaagaa
idan maani maayo keliya waxa weeye gabiilay waa meel ilaahay karaabeeyey wuxuu soo kiin daray farihii aqoontii iyo xoolihii intaasuu ilaahay idinku kulansiiyey meel istiraatiijiga ku taallaan waa meelaha haddii ilaahay inoo kiciyo dekeddaa berbera ee kooridoorkaasi inoo hagaago faa'iidada ugu weyn ka helayaatiin waxaa haysaan codkii ugu badnaa oo urursan maydaan xumayn markii aad muuse doorateen oo dee tolnimay ahayd xaq baanu idinku lahaa ninka tolka in adeerkaa inaad u hiiliso laakiinse marka dee la mahadin waayo xukunkiisii waa inay noqotaan kuwa ugu horreeya ka qabta kuwa ugu horreeya idhaahda in adeer waad halkii aanu doonayna maad gaadhine xilka bannee waxa weeyeen maanta dadkeenni waxa weeye u ilbaxay reer magaal buu noqday dareenkii qabiilku inuu yaraaday ahayd mutacallimiintii baa badatay intaasoo jaamacadood baa laga soo baxayaa dhallinyaradaasoo dhan diilay sugaysaa boqolkiiba 70 dadkeennu waa dhallinyaro haddii ay diilo waayaan oo mustaqbal madow mooyaane wax kale ay waayaanna way nagu kacayaan dawladuhu iyo mudana waxay ku burburaan markay gudahooda iyo diiladu jabto gabiilay hormood baa ka timi Somaliland ilaahay baan idinka dhigay waxaanu leenahay wax kala maha kaalintiinii qabsada kaalintii aan lahaydeen ilaahay idinku tala galay qabsada siyaasiyiin waaweyn baa ka soo bixi jiray culimo waaweyn baa ka soo bixi jirtay maanta codka ugu weyn ee urursan gabiilay buu yaallaa dadka ugu abaabulka wanaagsan gabiilay weeye anugu xagga habrowlo la kici maayo xagga garxajisna u kici maayo idinku wixii danta Somaliland ku jirtay dantiina ku jirto gabiilay mustaqbalkeedu wuxuu ku xidhan yahay Somaliland oo dhisanta xukunku wanaagsanaado ganacsiga xudunta u tihiin ilaahay idin dhigay dee masnada wajaale iyo gabiilay iyo allay baday waxay ku xidhan tahay xukun wanaagsan oo la helo ayinba wax ku noqonaysaan hormood ka noqda oo xisbiga muuse maanta talada ma ku dhama jirto ciidamadeennii waa ogtiin oo weliba aan filayo ciidankana dee kurgunka ugu weyn uu ahaa weligiiba reer gabiilay buu ahaa haddii tirahaan la eego maanta waxay ku sugan yihiinna waa ogtiin waxa dhintay iyo wax xabsi ku jira maanta muuse talada ma ku dhama jirto ma aha inuu isakranayo anigu muuse waanu soo wada kornay ilaa 59 baanu isnaqaanay isku daa baanu nahay niman heelaanu nahay niman ciidanka mar wada galee baanu nahay maanta muuse way ka dhan tahay isagrasho ma aha aqoontiisii halkaasay dhaaf weyday inaan isku soo eegno ma aha isagana daruguma jirto oo mustaqbal dambu yeelanaya maanta ma jirto haddii dee haddana mar dambe la kufo maanta muuse wayna la kufay mucaaradaydu maaha mid qabiil oo muuse sabab aan qabiil dee ugu colaadiyaa ma jirto dad heelaanu nahay nin reer Hargeysa nahay dad soo wada koray baanu nahay haddana maanta dee dan kuma jirto inuu maanta sii joogo innagana dee uguma jirto isagana uguma jirto hadduu garanayo reer gabiilay sharaxa madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga odayaasha reer gabiilay halkan jooga ay cali gure ka mid yahay ismaaciil aadan ka mid yahay cabdalla ka mid yahay xamarji ka mid yahay reer gabiilay malaha ma oga xisbiga yaasin ka mid yahay xisbiga wadani laba gudoomiye ku xigeen ayaa ku leeyahay marka laga yimaado golayaasha dhexe marka laga yimaado xogeeyaasha mid waa goodo imika halkan ka hadlayay
يا أحمد عمر حبرج تطوان والشغالة وحاول كله يعني هدي أصلا الشهر اللي بدك مو خلاص ده أنت هتقوله هلا ينلا ترتمو حسب واحد حسب إنه لا هاي لبا كل إياه لبا طبعا كبركي حسب يسوي بحي ونقول إيه قرر هاي وحسب يسوي بحي وحرس لها اللي بعنا دي شنطة هاي دقمة قبلي كصوب حي حتى أنا كتيرين حسب ومسك بين مرحلة وحسب يكون نقضي تاس واحد شيء يسا إن قبلي يعطي وسيا لبكون يلا بيتون حسب قاعد يصي وحسب أوركي وطني وحسب يكون نقضي لبكون يلا بيتون قلياش اللحاء تطبعون بين كل أنا هاي حقيقياش وحن ملايين يجنا أفر أما ستة بين كل أنا هاي حقيقيين ده مرك الله يسكوا الضرو كل ميو لبكور أي هيرجي بلو عديين هم ملايين ما يو إنه مثلات أنت هالك يكراس أنت هالك حسبي كسي مرك كودر طبعا ويركعي إن أنت هاي دلوا ذاكو حسبي هو حسبي كما ورسني شكناي كما تشرو إنه عبد الرحمن محمد عبد الله ونقول مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مستقبل كدو ما هو مهمل كجرا وحشكي كجرا ما سيدان ugu kalsoonay in ilaahay naftayda qaadayo ayaan ugu kalsoonay inaan madaxweyne noqonayso liano shacbiga anaga ku dhex jirna habeen iyo maalin anaga dhex socona waxa weeyaan cid kale adiga aan hayba looma hayo dalka run hadii la doonayo annaga ku sheegayna ku ballan qaadayna shacbigii wajala ku ballan qaadaya ku gobolka Gabiley baa ku ballan qaadaya qof kasto reer Gabiley maanta hadaad sheekaysato wuxuu ku leeyahay haba 17 wixii dhacay qalad buha aan ka soo noqosho lahayn sababtoo waxay tijaabiyeen wixii maalinta loogu yeeray qabyaalada waxay tijaabiyeen wixii dhacay intii uu haystay madaxweyne Muuse Bixi dalka haday ciidan tahay haday wax kasta tahay degmada Togo Jaale maanta waxa ku yaalay daanta Itoobiya 230 baan oo Itoobiya leedahay oo shaqeynaya waqtiga maantana hal baan kuma yaalo waxaad garanaysaa gaabka u dhaxeeya inta degmada Togo Jaale way xirantay kastarkii kala bayr uu xidhmay toos reer Gabiley maanta waxay og yihiin wixii Muuse u geystay sidaa daraadeed waxaan fariinta ku soo gaarsiinaynaa gudoomiye musharax waxaan idin soo gaarsiinayaa fariinta uu Jaale ka keenay inay maanta shacbiga reer Jaale ku ballan qaadayaan inaad tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya halka fariinay oo soo gaarsiinay hal qodobna waan ku darayaa madaxweyne hal qodob baan ku darayaa waxa weeyaan xisbiga in loo halgamaa waa mid inay naga goonaato ay tahay uma baahnid amaan uma baahnid shaqaynu u baahna waxaynu u baahnay inaan dadka runta u sheegno waxaynu u baahnay habeen iyo maalin bay la sheegno laakiin looma baahna in hortaada la yimaado lagu amaano sans ma samaynaysa amaani inaan shaqaynaynu u baahna waxaan reer Gabiley ugu ballan aan ka codsanayaa fadlan waa inaynu dadaalno inta reer Gabiley ay naga maqana waa inaynu u yeedhno dadka reer Somaliland laba qaybood baa loo qeybiyay qaarna xuduudiga ciidankii qaranku lahaa baa lagu caburinayay muddo sanada oo taageerayaashii xisbiga wadani bay ahaayeen intayadii xisbiga kulmiye loo tirinayayna jalaafo siyaasadeed ayaa la nagu dilay mar allaaliya markaanu aragno in qarankan iyo dalkani meel qaldan ku socdo bayjka madaxtooyada Somaliland waxa loo soo dhigi jiray sawir la odhanay madaxweyne maanta faras buu fuulay maanta madaxweynaheenu uu rooray halkaas bariga lagu qabanay marka jalaafooyinkaas loo dhigo 6 sanadoodba waxaanu ku jirnay khuuriyaanu ku jirnay imka 5 bilood xisbiga waddan hawshiisa aanu galnay ayaanu dareemaynaa nolol siyaasadeed inta kadib hal baan leeyahay taageerayaasha xisbiga wadani hal waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye kulmiye ku horeysiinaya taageerayaashiisa oo soo maca salaameeyay muddo 5 sano ka hor reer kulmiye waxaan leeyahay saaxiibayaan de murashax dhisa ilaa hadda waa madaxweyne Bixi ilaa hadda wuxuu ku mashquulsan yahay inama reer Somaliland oo aan dambi geysan
oo ganacsigoogiina maalmoodkooda ku jira in la iska xidho annaguna haddaan nahay taageerayaasha xisbiga wadani ee cusub ninkaanu wadnaa waxa weeye waa madaxweynaha murashaxa ah ee 5 biloodba ku mashquulsanaa sidii xeerarka doorashooyinka dimuqraadiyadda Soomaaliland oo waliba wax weyn ka tariyo dawladnimadeena oo 5 biloodba waxa biyo culista uu fadhiyay oo si dawladnimadeena iyo doorashooyinka u dhaqaaqi lahaayeen u faraystay ee waxa weeye 6 bilood 5 biloodba hawshaawday ninna dawladnimo ka shaqeynayay ninna inama reer Soomaaliland oo faldambiyeed geysan waxa weeye xirxidayay waana la kala tagay orad sare maaha hadalka soo gaabay leeyahay waxaan leeyahay waxa weeye tareenku dhaqaaqay halkaas ay noo balana isbedel baynu baahanahay midna ku darsada oo xisbiga iyo xukuumadda dhacaysa laba shay baa lagu gartaa golaha guurtida ka hor yimaada iyo deegaanka Gabiley iyo Koodburo ka hor yimaada xukuumadda xisbiga si gabaabsiga intaas lagu gartaa taariikhda Soomaaliland 93 markii golaha guurtida la aasaasay waa markii ugu horeysay golaha guurtida mucaarad noqday maxay sheegaysaa in Soomaaliland madax ilaa mijo in dhibta xisbiga kulmiyo xukuumadda ka dhalatay ay wada taabatay marka meel ay Jurooba kore golaha guurtida meel ay ka hor yimaadeen xisbigaas uu kuma salaameeyay cid ay raacaana waa fawsiga gul siyaasadeed Gabiley ayana kaftame Gabiley Jurooba kore kaliya joogaan waa meel ballaaran oo qowmiyad anigii Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirdabar reer Gabiley waan nahay marka waa magaalo xadaarad leh oo magaalo saqaafadeeda iyo ilbaxnimadeedu ka duwan tahay magaalooyinka kale marka sidii saaxiibkii Xamse Khayra sheegay Soomaaliland waxa isleeyahay Gabiley iyo Cergaabo waa laba magaalo dadka ugu ilbaxsan ee ugu reer magaalsan ay joogaan taasina waxay keenaysaa dad kala deegaana oo kala qoomiyadaha baa jooga haddana hal qoomiyad isku ah marka saaxiibkay walaalkay xildhibaan Axmed Wali oo nin karti badana oo nin aqoon badana oo nin fahankiisa siyaasiga ay korsan yahay inaan xisbiga caawa ku soo dhaweyno sharaf way baynoo tahay oo karaamay noo tahay saaxiib soo dhawow waxaan hal kelmad ma oranayaa uno sharax madaxweyne xisbiga madaxweyne Gabiley albaabkeedii baa furmay oo xildhibaan Axmed Wali furay Gabileyna waa hooyada Soomaaliland oo hay'adda Soomaaliland weeyaan waa magaalo maanta 7 sano Muuse Biixi joogay xidhan dhakhtarkeedii xidhmay waxa xidhmay meelihii cashuuraha lagu qaaday oo dhan baa xidhmay taariikhda waa markii koobaad ee Gabiley hooyo laga umuliyo mobile tooshkeed waa Gabiley waxa weeye halku madaxweynuhu ku abtirsado oo markuu doonayo inuu qabyaalada istaaro uu reer Gabiley baan madaxweynuhu waa reer Gabiley ma aha madaxweyne Muuse Biixi xagga oogadu joogay ma aha reer Gabiley waxaan u baahanahay madaxweyne inaynu wadani sida loo og yahay Axmedow saaxiib soo dhawow wadani waa lagu soo kala horeeyay lama kala laha waa meel ballaaran oo dhinacaad ka darsatay waa wanaag iyo walaaltinimo taalo odayaashooda oo Cabdalla Sandheeri Geelji Cabdulaahi Geeljiro koow ka yihiin waxay ku tusaysaa inay odayaal dhalinyaro xadaariin yihiin marka soo dhawaada waxaan ku soo dhaweynayaa dhammaan haweenka qiimaha badan reer Gabiley ee halkan isugu yimid inantii sharafta badneed halkan ka hadashay hadalka qiimaha badanna tiri bareeraha kala duwan ee halkan laga jeediyay oo aad iyo aad farax gelinaya inay caawa ii muuqato dareenkii iyo himiladii aan in badan ku hameeyay oo aan ahayn oo kaliya inuu Cabdiraxmaan kursiga fuulo oo insha Allah ta'ala dadka saari karo oo dadka deegeesi lagu yahay hadii dadku yimaado uu saari waxa himiladaas soo ahay Cabdiraxmaan dadkii kursiga saari lahaa oo midaysan oo aan qaybsanay oo meel u wada jeeda oo jeedo wada leh oo sida xukuumaddu ay u dhigtay
ciidanka ka dhigatay ee ah iyaga iyo inaga in la yiraahdo iyaga iyo inaga caawa in laga gudbay oo aynu u gudubno inaynu inagoo keliya nahay inaynu inagoo isku jiriyo isku qofayo isku aragtiya aynu nahay oo aynu dowladnimada ku dhisano oo wixii inaga qaloocan ku saxano oo madaxda xun ku bedelo taasaynu wax ku noqonayna waana ifafaalaheedii baa muuqda insha allahu tacaala wuu hirgeli intiina ka shaqaynaysa ee qaybintii loogu talagalay in la qaybiyo oo qabyaalad loo qaybiyo inaynu ka korro ka gudubno intiina ka shaqaynaysaana waa ku mahadsantihiin waxaanaynu insha allahu tacaala doonaynaa inaynu taa dhabbada cagta wada saaro waxaan caynkaa u leeyahay 17 anigoo riyadaa lafteeda ku riyoonaya ayaan campaign manager u magacaabay xamse khayre waa kani barbar taagan oo wiil dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah iska furana waxaan jeclaan kulmiyana u magacoodo campaign managerka sidaas oo kale maan soo kale ku daynay campaignka magaaladii ama xafiiskii campaignka waxaanu ka dhiganay Gabiley baanu ka dhiganay waxaan doonayaa in iyaguna kulmiyana ka dhigtaan ood weyne oo gacmo isdhaafaan oo aan la iibiyo dadka laga iibiyo aragtiya iyo dadka maxaa loo qabanaya laakiin saan qabyaalad laga iibiyo idoo tan fortunate inay dhacday oo qabyaalad iyo sheegaantii anigu markaa waxaan ku baaqay war sheegaanta aynu sheegaan kala ku xidhno giraan ka dhigno oo inagoo gacmaha is wada haysanaa calaamadna waxaanu ka dhignay giraan wareegsan oo gacmaha la is wada haysto oo ay ahayd rajada shacabka tiibaa maanta rumayn inay rumowday muuqata afafaalaheedina muuqda waa ilaah mahadii caano qubtayba dabadood la qabay caano qubtayba dabadood la qabay intii waa natural yani waa dabiicadda yani dadka Soomaalida iyo mujtamaca qabaliga ah qabyaalada iyo in caadifadu ay sareysaa maaha wax u gaara muuse intii dhisaysay waa mid annabana soo martay xumadeediyo way dhacdaa laakiin saddexaad baynu ka gudbi waxaan islahaa qoladan oo aan filashada u filay intii ay idin dheeraayeen reer magaalnimo iyo ilbaxnimo ahayd ayaan u filayay inay qoladan bilowdo yeelkeeda iyagana dacartii ka soo dhacday oo weliba waxa u dheer de in badan oo tuunsanayd oo muuse tuunsanayd oo loo sheegay way arkeen oo daway ku goobay marka waxaan leenahay maanta aan dalka u danayno maaha cabdiraxmaan baa loo danaynay aanu dooro qof wanaagsan aanu dooro intii ni shalayto fikirkaa waday maanta idinku horgala inta yadii markii hore wadaynaanu dib isu taagin si ay u muuqato saaxad wada la wada leeyahay oo waliba xaafada musharax wixii ka soo jeeda waa idin balla qaadaynaa haddii duulduul iyo de nimanku waa libaaxyo dhawaaqooda markay hadlaan maalin walba xaafadayadan iyo xaafadan kale oo de aan degaan ahaan annaba aanan kala fogeyn wax la bale waxa hebel baa hadlay hebel baa hadlayna way istaagaysaayo xisbiga hadla waxaana hor kacaya insha Allah taala Ali Guray iyo Ismaaciil Yare iyo Cabdalle iyo kuwii barbar taagan iyo kuwa kale badan waxay sidoo kale caawa farxad u tahay saaxiibkay oo uu mar walba Cabdalle oran jiray aftiyaashii reer Gabiley de Bashiir de Suldaanka Bashiir Cabdisalaam oo ay oran jireen abtiyaasha reer Gabiley oo marba la canaajulayn jiray maanta uu cayaar gudayaa abtiyaashii dhiidhiigano reer Gabiley marka isagana waa hambaliyo Cabdalle laftiisu ma hawl yaro rag dhalinyarada uu tiriyay ugu weeyahay waa dhalinyarada marka waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin waxaynuna iska ilaalinaynaa weli may ka daalin inay inoo qaybiyaan iyaga iyo inagoo kaliya bay inoo isku waxbayno
ninka guuldaraystay ee siyaasad iibin kari waayey ayaa taa doonaya inuu iibiyo waxaan arkay dhalinyaro la qalday oo mararka qaarkood igu tiri dhaqaale xumada aragteen iyadoo laga sheekaynayo ayaa waa propagandada iyo beenta dawladdu qaybiso ayaa waxa lagu yiri lacagtii meel baankii la dhigo waa la waayo guryaha lagu xareeyo lacagtii Soomaaliland meel la dhigaa la waayo guryaha lagu xareeyo war propaganda waxba dawladda way dumisay xalayna wada war dawlad ma dhisto propaganda war been waxba ma tarto wax la waxay tartaa ma jirto waxa see soo xaqiijiyay deegaanadii shalayba laga dhisay haday maanta arkeen oo inoo hor kacayaan waxaynu doonaynaa insha Allah taala inuu isbedelkaas u dhawoobo isbedel khayr qaba hormuud ka tihiin loo siman yahay aynu isku wada kalsoonahay wixii inaga qalocdeen aynu saxano annaguna waxaanu diyaar u nahay annaga laftigayagu intii mucaaradnimada waxaanu qaladnay ilaa bashar baanu nahay waa saxaynaayo in nalagu dhaliilay in la toosiyo in nalaga taageero in nalaga kabo in waxa weeye naloo buuxiyo diyaar baanu nahay marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan ku celiyo xalay la tacsiyeeyay qoyskii reer Muuse Dahable Muuse iyo qoyskiisa iyo dhammaan ehelka iyo shacbiga Soomaaliland waa ka tacsiyeynaya Yarid Cabdinaasir faldambiyeed xun ayaa lagu dilay marxuumka cidda meesha uu ku dhintay ee lagu dilay joogta waxa saaran mas'uuliyad weyn in la soo helo dadkii faldambiyeedka geystay cadaaladana la hor keeno waxa kaloo arkay qoysku inay dalbanayaan in marxuumka meydkiisa loo keeno taasina waxaan leeyahay waa ku waajib oo maamulka Muqdisho joogta inta kadib waxaan si gaar ah u mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay munaasabadda ee taageerada weyn oo muujiyay waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa inantii Fariida ahayd ee geesiyada ahayd ee halka ka hadlay berigii baarlamaanka aynu dooranaynay 2021 maalin aanu nin xildhibaana soo sharaxay waxaan xasuustay oday aan isleeyahay wax fog waarkay baa wuxuu waxa doorashada soo socotay madaxtooyada marka la tiriyo codka Gabiley Muuse wuxuu oranayaa codka la igu celiyo kii Gabiley ma ahay marka caawa waxaas leeyahay odayga hadalkiisii iyo hadalkii caawa halkan laga yiri way isleeyihiin Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay inaynu gacmaha isu qabsanno si aynu u badbaadino duruufo badan baa ku gadaaman waxaas leeyahay saddex arrimood oo aanu ku celcelinay buu dalkani ku badbaadaya ta koowaad waa inaynu gacmaha is qabsanno aynu midnimada shacbiga abuuro ilaalino ku dadaalno midnimada shacbiga Soomaaliland kuwa inaga tagayna soo celino kuwa ruxmayna aynu joojino marka midnimada kow inoo ah inaynu guuleysano arrinta labaadna waa nabadda nabadda Soomaaliland gorgorta ma geli karto waa nabadeena ka shaqeynaa nabaddu ma ku badbaadaynaa nabadayna wax ku noqonaynaa nabadayna dawladnimada ku dhisan karaynaa arrinta ugu dambaysa waa in dalkan isbedel uu ka dhaco isbedelkuna uu ku yimaado nabad iyo doorasho qofka muwaadinka wuxuu exercise gareynayaa xaq u leeyahay oo dastuurka ugu qoran inuu isagu wax doorto ama la doorto Muuse anagu saaxiib baan nahay mala xirsigu ka yara cawdaaye
oo bal xisna hawlaan odaygu doorashada hay noo qabtee qaylada ka yara odayga haddii aan leeyahay doorashada aad baynu uga shaqaynaynay falilaahi alxamd marxalado badan baynu ka soo gudubnay dadku somaliland dee marar badan baa ogeydeenoo la isku dayey dadku inay kaceen hadday dhaqan yihiin hadday siyaasiyiin yihiin hadday ganacsato yihiin si khilaafka siyaasiga dalka looga saaro mar kastoo dadku isxilqaamo annagu waanu ogolaanaynay waxay soo jeediyaan xisbigu waa ogolaanayay mar walbana cidda diidaysay waa ahayd madaxweynaha soo jeedintii ugu dambeysay ee dee beesha habar jeclo oo ahayd in doorashada la isa saaro doorashada waddanka laga qabto go-aankaasaan is leeyahay waa go-aanka badbaadada u noqday somaliland maalintii la gaadhay waxa ay 27 August maantana waxaynu maraynaa bishii labaad 2024 dabayaaqadiis inuu hirgalo oo heshiiskaasi oo shuruucdu hirgasho cidda ugu badan rafadku ka imanayay waa garanaysaa falilaahi alxamd hawshu way soo ururtay madaxweynaha miiskiisay saaran tahay madaxweyne maalin dhaweyd wuxuu siiyey malaa eedda meel iskaga tuuro waa kii tv-ga qaranka tegey wuxuu aniga wax waliba weyga dhan yihiin golayaashii way haysta madaxweyne waxaa leena golayaashii way soo heshiiyeen sharcigii doorashooyinkan ama xeerarkiina wixii khilaaf ahaa way ka heshiiyeen si wada jirayay labada goloba aqlabiyeed ku soo ansixiyeen 2/3 maanta shacbigu adeeg ku eegaya haddaad doorashadu diyaar tahayna halkan bay ka muuqan doontaa haddaanad u diyaar ahaynna maantay muuqan doontaa mar labaad laakiin waxaan rajaynaynaa inuu doorasho diyaar u yahay odaygu marar badan meelo badan ka warwareegayo way u socon weyday marka waxaan rajaynaynaa inuu dalkana khilaafkiisa soo dhammaado doorashadiina aynu diyaar garowno fariintan shacbiga somaliland u sheegaya waxa weeye khilaafkii uu dhammaaday siyaasiga ahaa oo waa kii odaygu ogolaaday inkastuu rafad ka daba keenay shuruucdii doorashooyinkuna way dhammaatay oo ahayd qodobka asaasiga ah in shuruuc loo sameeyo doorashooyinka marka doorashadii baynu u diyaar garoobeynaa gabiley cidi kuma muransana inay gobol muhiima u tahay doorashooyinka somaliland oo dhan cod badan baa yaalla codkaasina dee berigii dhaweeda doorashadii 2017kii sida cabdiqaadir sheegayey odaygu dee in la doorta xaq uu lahaa mujaahidna uu ahaa inkastoo waktigii jihaadku dhammaaday berigii snm la sameeyey ninkii dhashay waa 50 jir maanta markaa inuu qof markay soo taawiyo weli snm baan ahay dadkay ceeb ku tahay yelkadeedii bala BBC laga baari doonaa berigii boorama shirka lagu qabanayay Muuse BBC laga wareystay wuxuu yidhi xilligii snmtu uu dhammaaday haddana weli isaga ina xukumaa marka waxaan leenahay dadkuna xaq way soo jihaadeen oo dee nimankaasi way soo xaq bay u lahaayeen maantana dadka doorashada leh cid ay dooranayaan anigu somaliland baan musharax u ahay deegaan gaara musharax uma yihin marka intayna halkan joogta ee caawa
dee taageerada buuxda muujisay iyo dhammaan shacbiga gobolka Gabileyba waxaan weydiisanayaa codkooda إن شاء الله برنامج ضدك قنعية أي نهر كيري دونا وعكلون قبيلي مليون أو بلنقاضة إما كانوا كوعلية ده موسى تضرب سنوش شويو معلم مسوق عادي قبل المدى قبيلي وحنا ما يقول في قبيلي أنا يقول بيسوية قبل المدى شعبي وانا نقول بشاريني هذه وانا نقول مهمة غير لما نحن نبغى قبل كقبيلي يدق موي كيسبة قدوبياشا حسبك عندما عندك مويك هل دورك أيها الله با هذه وانا نقول مهمة غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته